السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعن وناكسن داوديال كسو دوادا بوجينن قلكا ميديا مقالكن وإن آد 1 مليون أو لايكو قبطان 1 مليون أو شيرنا آتيسان نلا جوكتان إلا دماتك مقالكن سو دوادا داودياشن نقاليقا warbixinta laascaanood waxa ay noqotay warbixinada lagu jecel yahay Soomaaliya dagaalka halkaasi ka socdana waxa uu noqday mid aad u daba dheeraaday dagaalkaasi waxa uu sababay in cuqdad aad u badan ay kala qaadaan dadka magaalada laascaanood leh iyo sidoo kale dadka Soomaaliland gaar ahaan dad marka aan ku leeyahay shacbi ma ahan waa siyaasiyiinta iyo waliba kuwa iyagu inta badan arimahan aadka ay u saameynayso sababtoo ah waxa aad u lumay god aad halis ahna ku dhacay isku soo dhawaashihii dadka iyadoo oo walibana ay jirto in wili dadku aysan fahmin ama aysan aqoon qaabka ugu wanaagsan ee loola jaan qaadi karo ama loo amba qaadi karo arinta laascaanood dad badan oo Soomaaliland waxa ay u arkaan dulmi aad u xun in magaalada laascaanood la aado la weeraro la duqeeyo wax walba loo geysto dad badan oo ka mid yahay xildhibaan Abiib waxa inta badan ay ku celceliyaan kuna raftaan walibana ay cambaarayaan sheegaana in ay mugdi ku dhacayso Soomaaliland ay sii gashay waxyaabaha ugu daran waxa ay tahay siyaasiyiinta iyo kuwa xilka haya waxa ay noqdeen kuwa adeegsanaya hadalkii ugu xumaa walibana waxa ay doonayaan in dadkaasi laascaanood ay maamulaan aqli ma tahay maskax ma tahay macquul ma tahay jawaabtu waa mid aad u cad waana mid aad loo arki karo SSC maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen in ay bartilmaameed ka dhigtaan gawaarida shixnadaha u sida magaalada laascaanood waxaana taa ay keentay in ay markaa arinku uu noqdo mid sii dheeraada oo xaalka ku adkeeya Hargeysa qudaar halkaas soo mareysay iyo sidoo kale waxyaabo badan ayaa hakad la iska geliyay Soomaaliland sidoo kale waxa ku dhacay nabar dhinaca dhaqaalaha waxa ay sheegeen inay sagxadda marayaan dadka arimaha siyaasadda falanqeeya waxa ay leeyihiin Soomaaliland xitaa waxa ay lumisay kalsoonidii beesha caalamka oo waliba wadamo badan oo Soomaaliland u arkayay inay tahay amni waxa maanta laga dareemayaa cabsi waxaana loogu digayaa dadka ajaanibta inaysan aadin maxaa yeelay dhulka dagaalka uu ku dhacayo weerarka ay qaadeen wax walba ayuu sababay karaa ilaa haatan malahan wax kala joogsi ah ilaa haatan malahan cid soo dhex gashay ma jirto wax waan ah mana jirto mana u muuqato in Muuse Bixi uu qaadi karo ama uu sameyn karo wax lagu tilmaami karo geesinimo Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka iyo waliba gobolada marka Soomaaliya la eego meelaha ugu wanaagsan rajo weyn bay shacbigooda qabeen xitaa inay marka Soomaaliya ka go'aan oo wadan gooni ay noqdaan waxa sabab u ahaan jirtay ama inta badan kalsoonida ay qabeen waxay ahayd amniga iyo wanaaga ay ku jireen iyo sidoo kale in aysan ahayn dad dulmi wax ku raadinaya dhulkan Soomaaliland annaga ayaa leh Soomaaliya ku dhaxeen annaga ayaa u baahan annaga ayaana markaa ka gaarayna wax walba oo wanaag ah laakiin maanta beddelkeed waxa ay sameynayaan waxa ay weerar ku qaadayaan dad aad u wanaagsan aadna ixtiraam u leh awalba soo doontay oo jeclaa ama arkayay in dawladnimo ay isku darsan karaan iyaga iyo waliba markaa isaaq beesha lagu magacaabo waxana taasi ay noqotay maantay mid aad u baabaaday waa ay baabaaday rajadaasi wallahi waa ay baabaaday maxaa yeelay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku baabaaday waxa qayb ka ah
magaalada oo madaafiic lagu garaaco iyo siyaasiyiin aad iyo aad u afxumada ama hadalka seedaba wax buu isku soo dhaweeyaa mararka qaar marka la dhahana durugsiin ama inuu dad didiyana waa kan ugu xun maxaa yeelay mar walba waa masti inay fikiraan dadka mas'uuliyadda Soomaaliland ka haya waxaa jirta gawaari maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood la keenay dagaal ah kuwaasi oo ay keeneen dadka deegaanka ah gaar ahaan beesha dhulbahante waxaana gawaaridaas ay ka soo qaateen Soomaaliland ciidanka Soomaaliland ay qayb ka ahaayeen ciidanka Soomaaliland waxa dul huganaya dambiyo dagaalkan ugu xoog badan Muuse Biixi dambi dagaalkii ugu weyn ayuu galay waana sababta inta badan caalamku ay u leeyihiin ninkan hal qabto oo meel hala saaro ilaa iyo haatan jix yar kama muuqdo iyadoo aan ogsoonahay in birimageedo iyo dad aan waxba galabsan lagu laayay magaalada Laascaanood waxaan ayba ka baryeynaa 10kii ugu dambeeyay Ramadaan lagu jiraa in magaaladaasi ay hesho wax walba ay ku qanacsan tahay hadii ay amni ahaan lahayd hadii ay dhaqaale ahaan lahayd hadii ay wanaag ahaan lahayd waxaana Ilaahay ka baryeynaa in nabad tan ay jecel yihiin ay helaan dadka magaalada Laascaanood waxaana ayba ka baryeynaa in dadkaasi xitaa aad ku arkayso muuqaalada la baahinayo xitaa inay soonkiiba ay sasooneen oo shabcaan maraya inuu Ilaahay soo hanuuniyo guud ahaantoodba inuu Ilaahay soo hanuuniyana Ilaahay kaga baryeynaa muuqaalkan la gareeya share gareeya group walba gaarsiiya saaxiibadeeda qaaliga ah galka media ku soo biira follow dhaha tan iyo kulan dambana waxa ay kaga tageynaa sida iyo amaana Allah